dhambaal weeye khaas ah oo aniga oo qura loogu talagalay asi aan goostay inaan dhageystay adigana kuu soo gudbiyo kolkay ila noqotay inuu ku khuseeyo dhambaal weeye eed sheegad oo la doonayo inaadan dhagaysan oo keliyahe aad wax ka qabato waa cabasho u baahan hiilkaaga iyo guud ahaan hiilka bulshadeenna dhambaal weeye ay saxarli soo qalin daraalaysay ha yeeshee ay hablo badan oo la da'ahi la qabaan la murugoonayaan oo la cabanayaan inaan dhibaatada la qaybsanno oo ka naxno oo qura miyay tolo u saxarli doonaysaa maya waxay doonaysaa wadajir inaan wax kaga qabanno hagardaamada aan iyada oo keliya la soo gudboonaatay boqolaal habla ah oo ay isku gada yihiin xorriyaddii shakhsiga ahayd inta laga qaaday ayaa saxarla loogu adeegtay sidii qalab aan hadlin aan fakerin oo hadba docdii la doono gudaha aqalka laga soo jeediyo waxba yaanan gogoldhigga idinku dheerayne warqaddeedii iyo wixii ku qornaa maan idiin soo gudbiyo iyada iyo kuwa la midka ah ee qalab ahaanta loogu adeegtay aad u hiiliseene erayadeedii naxdinta lahaa maan maqalkiinna ku soo rido qaybtii labaad aan idiin mariye dareenkiinna daqiiqado iigu deeqa waxay saxarli tidhi heshiiskiisii loonaa ee aabbahay iyo guutaalo dhex maray macnihiisu muxuu tolow ahaa waxaa la igu xukumay inaan afadii guutaalo noqdo canabna ay afadii aabbahay noqoto saaxiib baannu ahayne waxaana lagu xukumay midiba inay tan kale aaye u noqoto kala fogaa saaxiibnimo iyo aayanimo dib looma dhigan wakhtina la iskama lubin ninba gabadhiisii ayuu fiidnimadii xoolihii oo aan soo xiroon u sheegay bal malee wixii dhacay annagoon is ogayn kuna tashan ayaannu bareerahaasi loon ku gacan sayray ha yeeshee diidmada hablaha yaryari sida la og yahay miyiga caku miyigee qiimo kuma leh sida uu ridiisa u bixin karo ayuu odayguna gabadhiisa u bixin karaa wax lala yaabana ma aha midda kale gabadh kasta oo reer miyi ahi maya ayay tidhaahdaa marka hore oo in nin la siiyey loo sheego kadibna tajuub dartii way iska yeeshaa sidaas awgeedna diidmada habeenkaasi labada oday wax dhiilla ah ma gelin hooyaday iyo canab hooyadeedba markay warkii maqleen ayaa argagax ku dhacay oo masayr ay la madax wareereen mid waliba ninkeedii ayay wejiga u kaduuday oo haruubkii caanood u dhiibi weyday beri haddii la joogay ayay aabbahay iyo guutaale guddoonsadeen in labadii dumar ahayd la dhisto oo la aqalgeysto guutaale ayaa ra'yi soo jeediyey oo yidhi caamir si aan dadku ugu malayn inaannu gabdhaha isdhaafsannay oo aan naloo caayin aan midba mar dhisanno kalana dambaysiinno oo aniga marka hore gabadhaada ii dhis aabbahay durbadiiba hawraarsan iyo guddoon ayuu yidhi waa yaab mar walba guutaale ayaa talada keena mar walbana waa ka yeelaa aabbahay aqalkii la igeyn lahaa ayaa la asaasay oo udubada loo subkay ardaagiina loo dugsiiyey farta ayaa la igu fiiqay laakiin ma rumaysan inay dhab tahay oo anigoo aan oggolayn la idhex jiifin doono si degdeg ah si uu canab ugu helo wuxuu aabbahay guddoonsaday inuu guutaale degdeg iigu xidhayo diidmo maxay tari anigoo afarta adin la isku kaya xidhay oo sidii fuusta maran lasii dilandilaynaayo ayaa aqalkii caku aqalkee la igu dhex tuuray guutaale ayaa soo galay oo isoo dul joogsaday aabbahay oo inuu imirjin doono ku dhaaranayaana ardaaga ayuu siiqa xanuun badan la fadhiyaa waxay ahayd markii iigu horraysay oo aan aabbahay necbaado
waxayna ahayd markii igu horeysay oo aan canab necbaado maxaa yeelay haddii aysan jirin canab silicaani ima qabsadeen malaha iyadana waa u dambaysaa ayaan hoos iska iri guutaale waa ila hadlaa laakiin ma maqlayn waxaan hoos kaga taahayay nabarradii iga soo gaaray jiididdii iyo siiqadii aabbahay oogadayda ku wada calaameeyey dhowr bari haddaan sidaas ahaa oo xadhiggii i xanuujiyey ayaan codsaday in ikhtiyaarkayga aan guriga ku joogee xadhigga layga furo run baa la mooday waana layga furay baf baan idhi oo aqalkii hooyaday gasada u fadhiistay miskiinad hooyaday way ii soo hiilin lahayd laakiin islaan reer miyi ahi maxaa tala ah oo ay aayaha carruurteeda ku yeelan kartaa waa waxba waan cararay waa la iga daba yimid iyadoo la rabo in sidaydii hore la igu celiyo laakiin markaan ma suuro gelin walaalkay oo carasaabatay ayaa qadwaan la soo booday oo guutaale iyo aabbahay ugu dhaartay haddii aysan faraha iga qaadin inay geesa dhiig leh goobta kala tegi doonaan dhexdoodii ayay ka willatay aniguna dhex kubari baan habeenkaa noqday kala jeclaayaa saddexda murmaysa guutaale aabbahay iyo walaalkay waxba yaanan warkugu daaline maalintii xigtayba waano iyo sasabid ayaa la igu hayay waxaan maya ahayn ayaa la iga waayey anigoo murugo ooyaya oo gaajo iyo oon golongolay ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa ii yimid 3 wiil oo isla beesha ka tirsan waxay ii sheegeen inay habboon tahay aniga iyo canabba inaannu israacno oo u cararo magaalada Jicdheer dabadeedna u tagno garsooraha degmada waxay ahayd markii iigu horeysay oo aan maqlo xeerka qoyska waxyaalihii badnaa ee ay xeerkaas iigu macneeyeen waxaan ka gartay inuu yahay xeer dhigaya inaan gabdhaha lagu qasbi karin nin aysan doonin waxaan markiiba hoos iska weydiiyey su'aasha yaab kale ee ah tolow garsooruhu xeerka ah ma maqlay wiilashii ka yeelnay subaxdii dambana annagoo dhuumanayna ayaannu Jicdheer gallay meel kale annaga oo aan u leexan baahiduna si baas noo gubayso ayaannu xafiiskii garsooraha tallaabada u qaadnay baahida waxaa noo dheerayd cabsi aan ka qabno sidaannu garsooraha ula hadli doonno ma maxkamad baan naqaan ma xafiis baannu camalkii garanaynaa show warqad baa la qortaa ma warqad baannu qori naqaan show arjiqoraa loo tagaa ma arjiqoraannu naqaan sidaan u sii soconnay ayaannu albaabkii xafiiska soo joogsanay askarigii baana weydiiyey waxaannu doonayno annagoo ilmaynayna ayaannu si tifaftiran dacwaddayadii ugu sheegnay ma aannu ogayn inaan askarigu shaqo ku lahayn arrintayada laakiin eed kuma aannu lahayn naxariistoon baannu ahayn cidda aan ka helaynase ma aanan garanayn askarigii isaga oo aan la gudbin ayuu garsoorihii u tanaagooday oo ku yidhi sheekh halkan waxaa taagan kuwa la yidhi waa la isdhaafsaday oo ooyay hadalkii uu intaa raaciyey oo badnaa ma maqlayn maxaa yeelay qalbiga iyo indhuhuba way ilmaynayeen canab iyadu waa iga roonayd maxaa yeelay xadhiggii iyo jajuubkii aan ilaa hadda soo maray lama soo marin wax yar kadib ayuu askarigii qolkii garsooraha noo gudbiyey hadal wuxuu ku bilaabay ilmo ayaa tihiin mid waliba aabbaheed bay sheegtay inaysan tan kale aabbaheed niyad u hayn oo doonayn xaashiyo miiska u saaraa hadduu cabbaar ku mashquulsanaa ayuu intana soo eega yidhi socda reerihii qabta carruur yahay ma idinkaa isu taliya iyadoon midina canaantii ka jawaabin ayuu askarigii soo baxa nagu yidhi bal muu sugo inta uu garsooruhu amarka bixinayo agajiid annagoo ah markaa albaabka ka baxayna ayaannu maqalnay oday meesha fadhiyey oo leh
alla maxay dunidii kharibantay bal goormaa la arki jiray habla sidaa u da'yar oo iskood u tashanay adduunya gadoon canab kama aan warqabin laakiin aniga waxay ila noqotay cid waliba inay naga soo horjeedo dhabtiina way ahayd halkii aan ka soo baxsannay inaan ku noqonno iyo inaannu gaajo habsanno ayaa noo simantay ileen lama huraan waa cawska jiilaale beelbaastii ayaannu u carrownay habeennimadii kolkaan tagnay oo labadayadii midba hooyadeed ku agdhuuma isleedahay ayuu aabbahay si lama filaan ah xerada adhiga gadaalkeeda nooga soo horbaxay ma aanu ogayn in maanta oo idil ay labada odayna raadinayaan hul gacanta ugu jirtay ayuu isagoon ila hadlin isaar saaray markay ka jabtayna darbaaxo iyo haraati ayuu dhulka ila dhigay waxay ahayd markii keli ahayd ee aan ka shakiyey inuu dhabtii aabbahay yahay anigoo siriray ayuu xadhig 4 adin inta iiga xiray si qaab daran ii jiiday oo aqalkii sidaan jawaan maran ahay igu dhex tuuray wax yar kadib baan indhaha kala qaaday mase guutaale ayaa idul taagay macirkuu ka soo dhacay wuu hadlay oo daldalmay oo waana igu dhaqaa yaase kow ka odhan haruub caana ah ayuu agtayda soo dhigay oo yaa dhamaya intaan ku gurguurtay haruubkii ayaan gacmahayga xirxirnaa ku dhuftay say dhulkay ku daateen caanihii oo idil dhegaystayaal waxaa maanta intaa noogu idil barnaamijkeennii fanka iyo suugaanta oo aanu ku soo qaadnay sheekadii dhambaalkii saxarla qaybteedii 2 dhegaystayaal waa ayaanba ayaane maantana maan idinku jalbeebiyo qaybtii 3aad ee dhambaalkii saxarla caamir